kani maanta waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxa ka mid ah sida xuquuqul aadanaha loo tabiyo yani markaad qaf dhibana la kulantid hadii aadan garanayn halkii aad ka baari lahayd markasta waxay noqonaysaa caqabad dhowr shaqaale ah oo wasaaradda ka shaqeeya ilaa iyo gaaraya ugu badnaan laga yaabo inay 10 iyo wax la mid yihiin bulshadii baahideeda iyo tacdiyadaas ay u dhacaan iyo halka ay ka dhacaan waxa laga yaabaa inaysan koobin marka maadaama ilaalinta xuquuqul aadanaha khaasatan ilaalinta xuquuqda caruurta ay tahay mas'uuliyad wadareed dhamaanteena wada saaran waxaan doonaynaa marka bulshadii iyo gudiyadii ku hawlanaa caawinta iyo habdhawrista caruurta iyo guud ahaan xuquuqul aadanaha in ay bartaan sidii loo dhooro loo ilaaliyo haddii ay dhacdo loo tabiyo loo dabagalo cadeynteedii iyo in ay jiraan ilaalo wanaagsan oo xuquuqul aadanaha waxaa muhiim ah markasta in dadkii iyo gudiyada ka shaqeynaya hawlaha ku hawlanaa garaad ahaan loo dhiso marka qofka garaad ahaan loo dhiso oo guud ahaan waa maxay xuquuqul aadanaha wuxuu yahay aasaaskii laga dhisa hanaankii hadina uu soo tabin lahaa haduu la kulmana laga dhisa sidoo uu dabagali lahaa in qofkii dhibanaha ahaa ama guud ahaan ilaalinta xuquuqul aadanaha in ay shaqeynayso waxay loo baahan yahay in la helo hanaan waxbarasho ama garaad kordhina markasta waa muhiim in tababarada noocan ah bulshada loo qabta hadafkan kaleena waxa weeye inaan abuurno jawi ama bay'a la aha saaxib ama uusan ka dhicin tacdiyada la xiriira xuquuqul aadanaha training kani maanta dadka diiradda lagu saarayo waa gudiyada habdhawrista caruurta oo Child Protection Advocacy Committee lagu dhaaf afka qalaad iyo guddiga xuquuqul aadanaha oo Human Rights Committee iga sida mid civil society organizations ama ururada bulshada rayidka oo aan doonayno aan ku xisaabtan inay yihiin labadeena garbood ama garab gacanteena midigta oo nagala shaqeeyaan bulshaweyntaasi in ay helaan adeegii saxda ay u baahnaayeen hadii aad la kulantid marka waxay ka saacidaysaa training-kan qof dhibana ah xageed u aadaysaa qofkaas maxaad u qabanaysaa maxaa adeeg ah ama oo qofkan saacideyn kara oo u diyaarsan maxaa halkeed ka bilaabi kartaa adigoo maadaama tahay Child Protection Advocacy Committee aad ku jirtid ama civil society organization aad tahay ama tahay guddiga xuquuqul aadanaha adiga levelkaaga xal uguma gaari kartaa mushkilada ama dhibaatooyinka qofka ku dhacday hadii qofkan uu u baahdo garsoor xaqu aadaya iyo xaqee la reportayna la reportkii la geeyna oo loo tabanaya maxaa u diyaarsan waxyaabahaas oo dhan in aad fahantaan ayuu training-kan ku saabsan yahay dhowr maalmood socon doono waxaad ogtihiin training-kani maaha kii koowaad waxaan soo qabanay dhowr training oo sanadkii tagay ah kana marka waxa weeye hadda waa wajigii labaad waxaan aan ku rajooynahay xiliyada training-adan ay gabagabowaan inaan heli doono dad badan oo wakiil ah oo u qareema xuquuqda aadanaha marka ilaalinta xuquuqul aadanaha sida uu sheegay waa guud ahaan waa mas'uuliyad wadareed dhamaanteena wada saaran waxaan doonaynaa in badan horumar laga sameeyo guud ahaan marka waxa ugu muhiimsan oo hadda yartan culayska faraha badan aan ku saarayna barnaamijkan waxa ugu weyn habdhawrista xuquuqda caruurta waxaad ogtihiin inuu jira axdiyaan caalami ah axdiyadaas caalamiga ah oo Soomaaliya ay ansixisay saxiixiyalna ay ka tahay dhamaan waxa la rabaa in la habdhawro haduu yahay mid caalami ah oo qaramada midooya haduu yahay mid ka heer Afrika ah oo
African Charter-ka ku tacalluqa asagana marka axdiga caruurta ee Afrika marka Soomaaliya maadaama ay tahay dal in badan mashkilaad iyo dhibaatooyin ku soo jiray waxa la doonayaa marka lagu xisaabtamaya sida ay u ilaalinayso xuquuqul aadanaha markasta waa la socdaa oo waxa jira talooyin badan oo Soomaaliya la sii oo ayadana ballanqaadi ay ka sameysay marka maadaama aan kabasho ku jirna hawlahan hadda aan qabanayno waxay ka mid tahay kabashadii iyo dib u ilaalintii iyo xoojintii ilaalinta xuquuqul aadanaha waana waxyaabaha guud ahaan markaad fiirisid adduunka intiisa kale Soomaaliya dadka daneeya arrimaheeda ay ugu aamini karaan inaan nahay bulsho dhowraysa xuquuqda aadanaha markastana xuquuqul aadanaha waa wax in la dhowro waajib ah dastuurkeena ayaa dhigaya waxaa dhigaya qanuunada caalamiga dhigayaan diin ahaan maadaama ummad aan nahay adina muslim ah waa waajibaad na saaran inaan ilaalino guud ahaan xuquuqda caruurta waxa jiraan barnaamijkan oo qayb ka ah barnaamijka la dhaha askareenta caruurta ama meelaha tacdiyada ay ka dhacaan hadii ay noqdaan kuwa qabiil ciidan waa baabulo ay yihiin in maanta wax dhibaatada ku gaadha ay tahay caruur hadii ay yihiin kuwa dawladeed laga yaabo inay caruur ku jiraan hadii ay yihiin beela ama qolooyin si gaar ah u hubeysan ama ay yihiin kooxo si falal guracan ku jiraba dhamaantood in ay ka faa'iideystaan caruurta marka caruur nooca hadii aad aragtid halkeed ka bilaabi kartaa iyo maxaad qaban kartaa marka guud ahaan barnaamijkan hadafka aan ka leenahay waa inaan abuurnaa beeya ama jawi xuquuqul aadanaha saaxiib la aanan jirin violation ama tacdiye ka dhana xuquuqul aadanaha iyo guud ahaan khaas ahaan caruurta marka waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahad celiyo waad mahadsantihiin dhowrka maalmood halkan joognana waxaan rabaa inaa waqtiga aad ilaalisaan ka soo qaybgalkiina markasta waxaan rabaa inaan xuso inay noo tahay muhiim oo ahmiyad gaar ah ay noo leedahay